بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجكeenan waxaan ku soo qaadan doonaa British Somaliland. Haddaba British Somaliland waxay ahayd maxkamad Ingiriis oo ku taalay qaybaha waqooyiga ee dhulka Soomaalida. Intii ay jirtay waxay xuduud la lahayd Soomaalidii Faransiiska ee Djibouti, Ethiopia iyo Soomaalidii Talyaaniga sanadihii u dhaxeeyay 1940 ilaa 1941 waxaa qabsaday Talyaaniga waxaana qayb ka ahayd Talyaanigii Bariga Afrika. British Somaliland waxay madaxbannaanideeda heshay 26 Juun 1960. Kowdii Luulyo waxay la midowday qaybtii Talyaanigu uu gumaysanayay ee loo yaqaanay maamulkii daakhiliga ahaa. Intii u dhaxaysay 26 Juun ilaa 1 July oo ahayd 5 maalmood, Somaliland waxay ahayd qaran madax bannaan oo adduunweynaha looga aqoonsan yahay dal madax bannaan. Sanadkii 1888 ayuu Ingiriisku aasaasay maxkamaddii British Somaliland. Ingiriisku wuxuu maxkamaddan hoosgeeyay Cadan oo uu ilaa sanadkii 1898 ka maamulayay xafiiskiisa. Gumaystaha Ingiriisku uu ku lahaa Hindiya intii u dhaxaysay 1898 ilaa 1905. British Somaliland waxaa laga maamulayay xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska. Intaas wixii ka dambeeyay waxaa toos looga maamulayay xafiiskii guud ee gumaystaha. Ingiriisku wuxuu heshiisyo la galay qabaa'illadii Somaliland deganaa. Haddaba siday qabaa'iladaasi iyo kuwa heshiiska la galay iyo kuwa aan galinba waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena kan ku xiga.